qaar ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Garowe caasimadda Puntland oo maalmihii la soo dhaafay gudoomiyayaashooda shir uga socday tuulada Awr Culus ayaa soo saaray go'aamo lagu ilaalinayo deegaanka loogana hortagayo xaalufka iyo mukhaadaraadka. Shirkan waxaa ka qayb galay gudoomiyayaasha deegaanada Yoombays, Xamxama, Dudumaale, Awr Culus, Reemanti, Birta Dheer, Qalaanqal, Laqlaajis, Ceelwacaysaad, Kalqori, Bareecad iyo weliba Abaarey. guddiga tuulooyinkani waxa ay soo saareen bayaan ka koobnaa 12 qodob oo lagu ilaalinayo deegaanka. waa la shiray ilaa xalay baa 12 tuulo iyo intay xambaarsanayeen shirayeen. waxaa la soo saaray 12 qodob. 12 qodobna ana la ii wakiishay. 12 qodob oo ay ku jiro danta dalka ee aan cid kale ninna uusan dan kale ku lahayn loogu talagalay in dalku inuu ku badbaado. qodobadaas waxaa ku badbaadaya waa deegaanka cid kale hawl kale ma jirto. bismillaah qodobka koowaad waa xaabada oo ciwaankiisu yahay ilaalinta deegaanka gobolka Nugaal. xaabada go'aan baa laga gaaray waa la saxiixay waxaa laga gaaray gaarigii lagu qabto xaabo laga bilaabo maanta oo bisha ay tahay 25 bisha 10aad 2019 gaarigii lagu qabto xaabo oo deegaanada maraya in xaabada laga dajiyo isagana lagu ganaaxo $200. mar labaad hadduu ku noqdo oo inta ku ekaan waayo waxa lagu ganaaxayaa $500 iyo 2 bilood oo 3 bilood oo xariga. qodobka waa la ansixiyay waana ka gudbeen tuulooyinka Garowe. baawurka la yiraahdo caana diiqda oo qodobka labaad go'aan baa laga gaaray laga bilaabo maanta 25 bisha 10aad 2019 inaan gaari caana diiqa uusan tagi karin meel wadooyinka munaasabka ka leexsan ka ma tagi karo baraag ma tagi karo xira geel iyo xira ari iyo kob iyo kayn midna ma dhex tagi karo. waxaa loo asteeyay inuu caanaha ka qaato tuulooyinkii waaweyn oo jiray oo eerada ahaa inuu gaarigu tuulada yimaado dadkuna caanaha halka lug ku keenaanin halkaasna uu ka soo kala wareego iyadoo loo danay iyadoo nin walba uu arag u jeedo in danta la leeyahay ay tahay in deegaanka la ilaaliyo baawuri baabiisay oo halkii koba qoorta madha ay 30 wada maraanin kobti iyo qoorta xukuma kala duwan. qodobka saddexaad ugaartii waa la xaalufiyay cagta la saaray Garowe waa laga soo duulay waxa lagu ganaaxay ugaartii saddex baa loo kala qaaday. عفوا جناح عنها وحير كحابة $200 نينكي ديدا $500 يا حرق انت نينكي ديدا كل عبته و$500 مركز لبعض يا حرق يديجان كوسن ديدا ما هو شغين لمبر صدح وقعدة صدح بالوك لقاض قريضة هي بعيد كي وقعدة واوين إلهي باوين وحال كيك جناحه $500 قف كي دله $500 baa lagu ganaaxay haduu ku noqdana waa kun iyo xarig. ugaarta dhexe deerada iyo garanuugta iyo bayracda iyo wixii la halmaala waa $200. baayadana ka xeeran ugaarta yaryar oo small ka ah oo u hooseysa oo jubleyda iyo sagaarada iyo gashiitada iyo wixii la halmaala iyadana waxa ka xukuman $50. hadduu ku noqdo qofkaas waa 100 iyo xarig. ugaartiina halkaas aan kaga soo gooyay qodobka saddexaad bay ahayd. qodobka afraad baa soo haray waxa la madnuucay gabi ahaanba in la fala wadooyin cusub gaadiidku ay falaanin dhagolow maqal wadooyinkii hore wixii ka soo hara oo wadooyinka faraca ah oo deegaanka lumiyay dhammaan waa la jaraya. guddi baa loo xisaariyaa waa la jaraya gaarigii wado cusub oo maanta wixii ka dameeya furaha $200 buu ku ganaaxan yahay ninkii ku sii noqnoqdana waa ku sii laba jibaarmaysa. qodobka shanaad waxa la madnuucay oo la mar labaad dhowr jeer la madnuucay saxiixiisa la badiyay in deegaan cusub la asaaso. gabi ahaan tuulooyinkii farihi bay ka bateen deegaan cusub wuxuu nagu noqday wax deegaanka inuu xaalufiyo mooyaan waxba soo kordhinay. ninkii raba guri iyo barkad wuxuu ku biirayaa tuulooyinka hore u jiray. waa qodobka shanaad qofkii abuura
isagoo wacyigelin qaba oo og si ku talagal ah u dega meel cusub oo magaalo ka asaasa oo baraaga ka asaasa cagta laga marinaya waxa allaala waxa uu meesha u geystay dukun daakun baa laga dhigayaa cagta laga marinaya qodobka lixaad waxa ayana qodobka aan ka fogeyn oo reeban xirmaysiga dhulka ilaahay baa iska leh kasoo muslim baa leh islaamka iska leh Soomaali baa iska leh Soomaali ma kala xigto cirif ilaa cirif dhulka qofkii gooni u sheegta dhul daaqsimeedka waxa ku waajibtay oo yaashu saxiixeen la isla qaatay in meesha uu xirmaystay cagta la mariyo la baabiyo dhulka la simo haduu xirmaysigaas markii laga baabiyana $500 lagu ganaaxo waa qodobka lixaad dhagoolo maqal qodobka toddobaad taas reer miyiga gooni u naqanaysa baan u malaynayaa in la gubo xiryaha la dego oo degalada ah oo nimba marka guuraho sida dawladda qori isu dhiibka la yiraahdo nimba mardego oo dadka ka dhaxeeya qofkii guba wuxuu ku takrifalay deegaanka qofkii xiro cusub oo asaasaya xirada waxa ka ganaaxan 3 wan oo waaweyn oo ahmiya leelku wareemiye ama $150 waa qodobka toddobaad in la qortay waan filayaa ilmaada riyaal waxaan codsanayaa waa 3 waxaan codsanayaa inay dawladdu iyo xoghaynteedu ay noo nabad gareeyaanin iyadoo qoraal ay xafiis walba dawladda tagi doonto hadii alla lambar 8 qofkii geedka qoyan jara sababtu doona kala haab ama habar balbala ku dhisanaysa ha ahaato ama mid kibir gooniyo koora ka qoraya ha ahaato ama mid magaalo ka yimi oo tiirar iyo dan kale ha ahaato qofkii geed qoyan gooya waa xarig iyo $200 geed qoyan waa lama taabtaan reer miyiga labada faan u ogolaan xaabada odaha qalan buu soo duwanayaa labada faan u ogolaan reerku labada faan ku soo goosanaya geedka lama jari karo sababtoo deegaanka fursad ka baxay qodobka 9aad waa qodob intii hore u maqashayna ay ku qosashay inta hadda maqal doontaan ay ku qosli doonto qodobkaas waxa weeye firshada geela lama ogola geelu inuu iska firshoodo kobaha iyo kaymaha ku firshoodo nagaarka ku fariisto ku seexdo ninka geela haysta geel jiro maqal ninka geela haysta geela waa nidaamsanaya system degan oo fiican oo kobaha iyo kaymaha la wada leeyahay xoolo daaqayaan haduu ku xareeyo waa $100 oo ganaaxa iyo wacyigelin haduu ku noqdana waa xarig iyo meesha laga raro lambarka tobnaad waxa la madnuucay in gebi ahaanba dalka caday laga jaro cadayla waa la madnuucay cadayla wuxuu noqday virus wuxuu noqday argagixiso wuxuu noqday deegaankii waxa la finaya oo 24 saac ku xisaabtamaya oo aan wax kale u heelanayn inuu deegaanka wax yeeleeyo mooyee wax kale uma heelana wax yeelada deegaan buu shaqo tagaya ninka waa la madnuucay lacag badan laga heli maayo ma isneeriyo xarig iyo $100 baan ku ganaxay qodobka 12aad waa qodobka qofka koowaad ku ganaaxmi doono rag badan oo laga yaabo hadda inay meelaha fadhiyaan jeebkooda inay ku jidho waa wax dhici kara waa bacda waxa la kansalay bac noocay ahaataba haday jawaan bariistahay iyo haday mid reer teendar guri teen roob ka saarsatahay oo markay dhamaato xiryaha looga guuro iyo haday tahay midaan wadanka dawladdu xakameyn weeday maalba dekada ka soo degato dawladdu xakameyn weedayo dawlad Puntland Soomaaliya dawladda Cabdiraxmaan Faroole baa u awood badnay Ilaahay baa awood leh bacda deersoolka ay bacdaas xoolaha wax yeelanaysa ku guulaysan weeyay si kasta uga hadashay bilada bacad joojin weey waxaan codsanaynaa in bacda dekada laga xanimo waxa jirta baabuurta khamrada iyo waxyaalaha muqaadaraadka wada go'aan baa laga gaaray go'aanka laga gaaray waxa weeye gaariga wada khamrada in meesha lagu gubo ninka iyo gaarigana in dawladda lagu wareejiyo waxaana xeer laga qaatay ninkaas inuu xirnaado 2 sano in loo jaro haday dawladdu amaradan ugu fulin weydo qol baan 2 sano ku xiranaynaa qolkaas 2 sano ku xiranaayo qoryo ku horaysanaynayo intuu wax yeelada deegaanka faraha kala baxay qolba 2 sano noogu xirnaanayo
waxaan joojinay waxaasoo dhan ka weyn oo waa la tahay rag leeyihiin waa la tahay baa rag leeyihiin laakiin annagana waa nala tahay dhammaan waxaan kasalnay tuulooyinkaas in qaadka laga joojiyo wadada dheer oo lacagtu taa laha maro laakiin waa madnuuc laga bilaabo maanta in tuulooyinka qaad yimaado oo dadka daymeeyo oo isku diro oo deegaanka fasahaadiyo haba yaraatee dhagoolow maqal waa qodob nagu qaaliya waa qodob aan dhaqaalihiisa mar hore urursano jeebka nagu jiro ma doonayno gaari qaad hadduu walaalka yahay yaa hadduu ina adeerka yahay yaa hadduu abtiga yahay yaa hadduu adeerka yahay Soomaalidu waa silsilad ninna loo abayeeli maayo duqa caasimadda Puntland Axmed Saciid Muuse xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland ayaa iyaguna shirkaasi ka qayb galay waxaana duqa oo halkaasi hadal ka jeediyay oo ballan qaaday inay kala shaqeyn doonaan tuulooyinkaasi go'aanada ay gaareen waxaan aad soo dhaweynayaa go'aamadii aad ka gaarteen shirkiina halkan idiin socday annaga waliba waad naga dhiirantihiin annagu waa ku dhiiran weynay inaan dhiraano waa joojinay sababtoo ah dadka meesha isugu imaanaya qaar bay xoranayaan war dadka qaar baa dan yarahoo aan maaragtay gaas gadan karinoo maxaa la yidhaahdaa dhuxul u baahanoo xaabo u baahanoo laakiin aynu bal foornooyinka iyo maxaa la yidhahdaa makhaayadaha iyo meelaha maaragtay iyaga dakhligu soo galo aynu ka joojino laakiin idinku waxaa ku dhiiratay inaad tirahdaan hala joojiyo waa idinla qaadanay hala joojiyo insha allah waana golo geyn doonaa haddii rabbi idmo in go'aanka la wada qaato ka hortageeda iyo la dagaalankeedana waa idinkala qayb qaadanaynaa anagu sideeda wasaaradda deegaanka iyo dawladdeenu xagga u fiirinaynaa inagu waxaynu isla nahay degmada Garowe go'aankaasi qaadatay dawladdana waxaan ka codsanaynaa in bacahana laga joojiyo dekedaha iyo meelaha ayna ka soo gasho iyo kastamada maxaa la yiraahdaa lana joojiyo maxaa la yiraahdaa go'aan guud ka soo baxo isticmaalka dhuxusha isla markaasna la dhiirigeliyo isticmaalka gaaska dabiiciga ah oo u bedelaya dadka isticmaalkooda qaybaha baahiyaha aad ka hadasheen waxaan u maleeyaa shirkani maanta waxa aad ugu fiicnay in deegaanka kaliya laga hadlo laakiin baahiyaha tabarteena inaga guud ahaan waynu garanaynaa tuulooyinku waxay ka tirsan yihiin degmada Garowe waxay u baahan yihiin inay dakhli soo saaraan waa inay cashuur qaadaan barkaday leeyihiin waa inay barkadaha biyahooda cashuur saaraan xoolaha lagu kala gataa in xoolaha dakhli laga qaado laakiin maanta wax iga sii farxad badan baan arkay ganaxyadana soo saarteen waa meeshan lacagtaba ka heli lahayn halkaasaba lacagta ku jirta waxaan rabnaa tuulo walba intay ciidan yar la dhiso oo loo qarameeyo oo ciidanka forestryga ama ilaalinta deegaanka la yiraahdo ciidankaasi maaragtay inuu awoodo inuu canshuurahaas qaado dhulka daba galo dadka wadooyinka biinaya uu qabto dadka wadooyinka maraya oo khamriga iyo maaragtay maandooriyaha wada ay qabtaan iyo waliba dadka taariibka lacag halkaas inoo kama dhowa meesha wax inoo ka dhow ma jiraan waxaan u baahanahay marka canshuurtana inaad qaadaan anagu wixii dokumenti iyo sharciyad iyo tababaraha baan diyaar idin lanahay maxaa la yiraahdaa waxyaabo badan tabaruc Axmed Sheekay STN TV Garowe